wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha iyo tababar dhinaca farsamada u samaysa dhalinyarada gobolka Togora. Tababarkaasi ayaa socon doona muddo 4 bilood waxaana ay kala baran doonaan qalabka kala duwan ee farsamada gacanta sida loo hagaajiyo iyo waliba kalimaasarada gaalasarada. Waxaana u joogay barafiga gobolka Togora Cabdimaalik Maxamed Banoyta iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka socda wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin kale, waxaana ay halkaas ku tageen kormeer si loo ogaado tababarka maanta furmaya ee soconaya muddada 4 bilood. maanta waa xafladda furitaanka tababarka farsamada gacanta ee loo fidinayo dhalinyarada, waxaana uu socon doonaa muddo 4 bilood waxaana soo qaban qaabiyay wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha iyo wasaaradda guryeynta deegaanka oo iska kaashaday dhalinyarada. qalabka waxa lagu baranayo ayaa u diyaara waana aqoontooda mid sare loogu qaadayo, waxaana u jooga macallimiin khibrad u leh xoojinaya in tababarkan uu socdo. ayaa waxa aan ka codsanaynaa inay si wanaagsan uga faa'iideystaan dhalinyarada tababarkan loo fidinayo. tababarkan ay wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha ugu talagashay ayaa ujeedada ugu weynaya sidii loo heli lahaa dhalinyaro xirfad iyo aqoon u leh qalabkan ay wax ka baranayaan sida kalimaasarada iyo gaalasarada, waxaana iyaga laga doonayaa inay noqdaan kuwii berri tababar u fidin lahaa dhalinyarada mustaqbalka ee soo kacaysa. dadkan aan tababarayna waa dad iska yaqaana qalabka horena ugu shaqaysan jiray, laakiinse annaga waxa aan ugu talagalnay oo kaliya in sare loogu qaado aqoontooda islamarkaana khataraha ka iman kara sidii ay uga hortagi lahaayeen.